السلام عليكم صاحب يال سو دوادا maanta iyo muuqaal cusub maanta muuqaalkeenu waxa ku saabsan yahay arin ay ka cabanayaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Hindiya gaar ahaan ardayda arinta oo noqotay arin maalmahan dama la hadal hayo oo baraha bulshada qabatay waxa laga yaabaa aragtay adba arintaas waxa weeye in dadkii Soomaaliyeed ee qurbaha ku noolaa gaar ahaan ragga ee baasaboorada ajnabiga sitay sida baasaboorada Yurubiyaanka iyo Mareykanka sitay ay Hindiya yimaadaan ay caafimaad aba waxyaabo kale yimaadaan si ay barta ugu raadsadaan caafimaad jaban iyo nolol jaban qaarkood ay degaan ma barta marka badanka waxa u badan yihiin rag xaasas leh sida la soo sheegay ayaa arintaas sameynaya arintaasna waxay ku noqotay arin saameyn weyn ku yeelata ardaydii iyo dadkii Hindiya yimaanay aba caafimaad yimaanay ee dalkii ka yimaanay aba wadamada kale ka yimaanay ay ku noqotay saameyn weyn ku yeelatay arintaas oo maalmihii dambeeyay laga cabanayay baraha bulshada la soo dhigay ardayduna ay ka hadashay arintaas waxa weeye in ay yimaadaan dalka Hindiya yimaadaan iyo baasaboor ajnabi wata oo lacag haysta dadka Hindiya oo dadka faqiirina oo waxba haysan badanka kadib ay dhaqaatiir ay u tagaan dadka dhaqaatiirta u yimid inta dhaqaatiirta la joogan ay hawshooda caafimaad u socdaan ay waxa sameynayaan dadka Hindida horta caadadooda waxa dhaqan bay leeyihiin Hindidu gabadha marka la guursanayo iyada gabaatida iyo lacagta bixinaysa gabadha bixinaysa xagga Soomaalidu ay rag ay bixiyaan gabaatiga iyo meherkii wax walba xagga dad iska diintu ay ku yartahay weeyaan oo dhaqan ku dhagan kadib waxa sameeyaan gabadha marka la guursanayo gabadha waa in ay lacag haysto horta markay doonayso inay guursato si ay hadhow lacag ninka u siiso markay guursanayso taasna waa dhaqan iyo caado ka dalka Hindiya kadib ninkii Soomaaliga baasaboorka watay Hindiya manaya markuu Hindiya yimaado ayaa waxa uu sameeyaa inta uu Hindiya joogo ayaa gabadh guursanaya Hindiyada oo iska masaakiina oo wax saa u sii buuran haysan kadib wuxuu qoranayaa anaga dhaqankayga waxa weeyaan in gabadha gabaati iyo la siiyo lacag la siiyo family-goodana uu la hadlaya wuxuu qoranayaa gabadhiina niga rabaa kadib wuxuu u ballan qaadayaa lacag uu xoogaya inuu xaafadooda ama family-gooda qaadi doono dibadda u qaadi doono maadaama uu sito baasaboor ajnabi ama Mareykan ama Yurubiyaana kadib arintii sidoo ku dhacday maxaa ka dambeeyay laakiin markuu bil amba 2 bilood qabo dalkiisa ku laabanaya baasaboor lagama hayo baasaboor koobi lagama hayo waxba lagama hayo information saa si badan lagama hayo dadkan waxay ku raaceen lacag iyo waxa marka Hindidu dhaqanka leeyahay waxa weeyaan gabadha hadii la furo martaba lama guursanayo dhaq ay leeyihiin Hindiduna taa way ku dhintaan kadib gabadhii markuu qurbiga ka aado qurbiga ka tago waxa ka qabto xaqa isma garanaysa kadib waxa dhacda inuu hadhow soo hadlo family-gooda la soo hadlo oo ku ira abaabiheena hooyadu la soo hadlo oo ku ira gabadhiini waan furay qaar waxa dhacday in ay ilmo kaga tagaan ilmo hal laba wax noocaas qaarna waxa dhacday in ay kaga tagin oo ay sida qurbaha ku tagaan hadhowna gabadhii la furo gabadhii maxaa u dambeynaya gabadhii Hindiyada waxa u dambeynaya inaan dib loo guursan sharafteedii iyo waxeedii bartaas oo sharafteediina bartaas ku dhaawacay marka arintaas waxa ku noqday saameyn ardaydii iyo dadkii joogay dadkii Soomaaliyeed ee joogay xagga Hindiya marka gabadh baa ka soo hadashay ardayda oo arinka please naga daaya fadlan naga daaya arinka wadaan way saameyn anaga u yeelatay horta gabadhan aduu muuqaal 12 mir meelaas soconaya ayaa filaya aba 10 mir ayaa ay soo deysay kadib muuqaalkii gabadhii wadi ka weeday oo hinbi qabsatay oo naxdin gabadha way ka dareemaysaa marka hadlaso marka tabal gabadha waxa ku hadlaso iyo waxa si bal eegi doona bal muuqaalkeeda daawada anigu waxaan ku dhaqanaa Hindiya Hyderabad dadkan ay ogsoonona maanta ugu horeysa fiidiyowga daawanaya halkan waxa yimaada caafimaad iyo arday iyo qof caafimaad ku soo gala oo USK waxa iska dhiiba sidaas baa ahaatay dadka badan ay UN-ka u yimaada families bay yimaadaan ayagu badankood waa family dad iyagoo dhan dhameystiran way halkan wada dega haddaba dadka aan maanta ka tirsanayo ama aan arday ahaan anoo ku hadlayo hadalka ardayga aan dhibaatada ka tirsanayna waxa weeyaan ragga ka imanaya Mareykanka ama ragga ka imanaya qurbaha shishe si ay Hindiya caafimaad
ugu joogaan. Basically qofka caafimaadka wadanka u yimaada wuxuu u joogaa adiga 3 bilood 4 bilood depending on qofkaas conditionkiisa wuxuu yahay qofka caafimaadna ay u yimaadaan. Sidaas darteed waxaa loo kordhiyaa stayga intuu ku joogay Hindiya. dhacdooyin badan waanu aragnay dadka maxaa la dhahayaa dibadda ka yimaada especially ragga. dumarka anu kama hadlayo maxaa yeelay dumarku wax qalad ay sameeyaan ma arkin oo wax ardayda dhibaato u keenay. qaladku wuxuu ka imanaya bay tiri xagga raggu ka yimaada, dumarku wax dhibaato oo saasa ma geystaan. laakiin ragga dhibaatooyin badan ayay u keensadaan. tan koowaad ay ka mid tahay waxay guursadaan gabdhaha Hindida yaryarka ah. ha guursadaan maxuma qofka kan Ilaahay waa u baneeyay inuu guursado nin rag uu yahay uu guursan karaa ilaa uu afar ahaat inta tabartiisa ay tahay. gabdhaha yaryarka ah Hindida baa la guursanayaa mid sharciyeysan oo la dhisay maaha, waa mid waalidkood lacag la siinayo dan inta uu joogayo ilaa 5 bilood ahaato intuu caafimaadkiisa Hindiya ka joogo buu ku joogayaa dan uu ka tagayaa. isaga wax galaafa ah oo gaarsamaysa ma laha maxaa yeelay isaga waxa ku soo xirtay agency qolyahan tuugada oo u dhaxaysa iyo de gabadha tan miskiinta ay isleeyay nin baa soo doontay. gabdhaha Hindida halkan iyaga lacagta bixiya markii anaga marka gabdhaha Hindidii wada iska faqirina lacagta jecel yihiin marka lacagtaas uga faa'iideystay aba uga faa'iideysanayaan dadka imanaya qubay meelaha ka imanaya ballanqaadna oo sameeyaan kadib gabdhihiisa ku guursanayaan. loo fiiriyo waxa jira la dhaho dowri oo gabdhaha iyaga waad aragteen meher baa laga bixiyaa si loo guursado. halkan gabdhaha iyaga meher bixiya. haddaba waxaa jira familiyaal daciif ah oonan tabar saas haysan. familkaas oo kale dadku way ka faa'iideystaan especially ragga way ka faa'iideystaan maxaa yeelay waxay arkayaan inaysan financial stable ahayn. qof maaragtay familkeedu dayacan yahay hadal baa loogu sheekeynaya waxa leeyahay familkaagan meel fiican ka soo saarina adna waa ku doonaya. waxaa laga yaabaa maalinkaas inay ugu horeyso. waxaa arkay wiilal badan oo arday ah oo intaas la dhibayo oo kelimada Soomaali waasaan marba waxba anagana lagu maagaa because anaga saa isku qaado. kadib arintii saameyn ba ku yeelatay wiilashii Soomaaliyeed ee ardayda ahaa ee masaakiinta ay joogiya hablihiiba oo markasta la adeegsanayo eriga Soomaalidu waasan Soomaalidu dad xun Soomaalidu hawlaha guursan oo ka yaacaan eriga noocaas lagu adeegsanayaa. ani positionka iskeena baa dadku nagu maagayaan especially wiilasha ardayda dhibaatooyin badan ayay kala kulmaan maxaa yeelay odayaasha Soomaalida waxa ay sameeyaan. anoona hadal ku sii dheeraanaynin waxaa jira gabdho badan oo tabar la siiyay oo ah inay social media soo galaan oo dhahaan media soo fadhiistaan oo dhahaan anaga saanaan ka tabanaynaa ninkayga intuu yiraahday waa soo laabanayaa isagoo maqan 2 bilood markii ka soo wareegtay wuxuu leeyahay oo kale waa ku furay wax qaladana ma sameyn caruur baan u hayaa waxaan sameeyana ma garanayo. raggaas oo kale baa jira waxa laga yaabaa gabadhii markuu qurbaha tago uu soo hadlay wax oranaya gabadhii waa furay sababta ku furtay waxay reason kee bal oranaya waxa kuma furin iska furay ay oranaya waxa laga yaabaa caruur hayso dhibaato jirta oo dhibaato markaa gabadh aan waxba sameyn iska fur macquul ma hadde waxay doonto baa haatee xaasaskoodii dhabta ah inay ku laabtaan yani wax dhibaato halkan kama hayaan yani de contactigan halkaas ugu dambeysay balag baa la saaraya numberkeeda. dadkaas waxa gabadhu ka dhawaajisay inay yihiin dad badanka xaasas leh oo xaasaskoodii bartan ku sugaya 2 bilood kadib soo xaasiisi uu soo u laabanaya xaqii uu ka yimid ku laabanaya kabir hadhowna gabadhu uu soo tabahalaya uu furaya numberkeeda sawirna isla magalayaan markaas hadii kale sawir isla galaan waa u dhamaatay. inta kale sawir isla gali maayo sawir waa mamnuuc walaalay marmar in sawir laga qabto laga yaabaa oo ninka ku xararay hadhow in tabagal iyo xal uu soo sameeyo baraha bulshada dhan baa soo galinaya. waxaan dhihi lahaa raggiinan doonaya guurka xalaasha oo ka doonaya gabdhaha Hindida bilaahi calaykum haddii aysan daacadeen ka ahayn waa lugooy dambi baa ka galaysaan. anagana galaafa noo gaarsiisanaysaan oo maxaa la dhahay ardaydii wiilashii yararka ah ee waxbarashada loo soo dirsaday ba example folxun u direysaan oo iskuulka markay tagaan oo kale waxa la leeyahay Soomaalidiina saanatiin mar terrorist baatiin mar kanaatiin marba category walba waa ku jirnaa anaga.
hadalka anoona idin sii dheereynaynin page waxaa jira Axmed Weli Axmed la dhaho halkan idin soo dhigayaa ninka hindi buu ku hadlayaa laakiin wuxuu sheegayaa waa kala gabar yar weeye indhashareer iyo waxay qabtaa khamaar iyo shukay qabtaa si aan loo recognize gareysan oo dariskoodii waxaasay soo arag ceeb dhan aysan maaragtay u soo gaarin maxaa yeelay dadkan waxa kaliya ka dhintaan waxa weeye gabadheedu waa la furay furniin ayay ka dhintaan hindida waxa arkaysaa maxaa la dhahayay waxyaabahan oo kale hadii ay gelisid oo tiraahdo ninka magaciisa ku dhifatid case ugu horeeya maaha waa dhowr iyo 10 case ninka wuxuu sameeyaa kaliya magaceeda iyo ninkaas magaciisa marka nin page Facebook kule ayaa waxaan soo dhiga gabdhaha saa loo furo la dayaco hadhow la iska waa furnay iyo wax noocaas marka ninkaas waa YouTuber marna Facebook ay wax soo gagaliya say gabadhu tiri waa YouTuber tiri wax soo galiya YouTube-ka page-na Weli Axmed Weli wax noocaas la yiraahdo tiri marka dhowr iyo 10 case oo noocaas oo dumarka laga yaacay ayuu page-kiisa soo galiyay iyo wuxuu ku sameeyay bushaacinaya yani gabadha tan kaligeed maaha gabdho kale jira saasaana loo galay dadkaas ka digtoono caadi ah oo fariin ah buu u reebaa marka haddana guda galina insha Allah I hope wa idin fasiraya si aad u fahantaan maxaa yeelay wuxuu ku hadlayaa Urdu insha Allah Sabah Fatima Ghazi Millan Colony Chandra Kutegere रहने वाले हैं इनकी wuxuu sheegay area degan tahay iyo magaceeda वालिदा हिसाब हैं waxaana la fadhiyay waaridkeed baa ag fadhiya soo way hadlaysaa kus kaligeed lama wareysan karo ka gabadha tusumaysa wuxuu ninku leeyahay iyada meesha ku nool luqadii garanaysa dhaw ka qajilaan मसला ये है कि सबा फातिमा की जो है शादी एक सोमालियन नेशनल अब्दे वली अहमद से हुई थी जो यहाँ पर marka nuxurku waxa weeye gabadhu video si wada hirweyd walaah naxdin awgeed marka nuxurku waxa weeye raga qurbaha ka imanaya ayaa arinta xun ee foosh xun la sameeynaya inta gabadhu si guursadaan lacag u faa'iideystaan ballanqaadi been u sameeyaan ayay qurbaha ka aadayaan hadhow ka soo daba hadlayaan kadib wax oranayaan waa ku furnay bila reason bila sabab bila waxba marka gabadhii bartaa ku mustaqbal beeleysa dadka hindiina dhaqanka caadadaas leeyihiin ah in gabadhii hadii la furo marka mustaqbalkeedu bartaa ku baabay asaa ku gabowsoo leeyahay cidna gursanay fadlan hadaad muuqaalkan ka heshay like share and comment hadaad kamid ahayn asxaabteena nagu soo bir oo subscribe saar aad ma maasantiin